Hello and Bismillahirrahmanirrahim. Maanta waxaynu tusayaa sida loo isticmaalo WordPress oo marka la install gareynayo waxaad doorataa auto install kadib ku dhufo WordPress. Okay, waxa ku soo baxsan waxaad doorataa install kadibna waxaad doorataa website-ka aad ku install gareynaysid. Hoos u soco waxaad bedeli doontaa magaca aad hadhow ku geli doonto administrator name-ka waxaad ka dhigtaa admin amba magaca jeceshahay adigu. Okay, taa waan ku qoranaa aniga waxaan ku qorayaa admin. Password-ku waa kaas. Password-ku always waa inuu ahaado mid adag haddaba meel baan ku koobiyeysana password-ka si aan inuu iloobin. Okay, kadibna waxaan oranaa install kadibna wuxuu ku install garanayaa second degdeg ayuu ku install garanayaa. soo tani waa haddaad haysatid waxa loo yaqaano hosting website haddaad haysatid weeyaan ayaa sidan u install garanaysaa. Okay, waad aragtaa. Congratulations, the software was installing successfully. Okay, hoos u soco all information ayaan eeganaa. Okay, waan iska xidhanaa hadda waxaan testeynaa website-kii. So website-keeni waa kan uu soo baxay sidan my WordPress blog. Okay, waan yareynayaa hadda dana waan weyneynayaa. Okay, so waka hadda uu install gareeyay. hadda waxaan gelaynaa administrator key. so halka sare waxaan ku qoraynaa wp-admin. waxa kuu soo baxaysa meeshii username passwordkaad ku qori lahayd. admin baa username-ku passwordkeeduna waa wixii isku dhex yaacsanaa kadibna waan ku koobiyeynaa kadibna meeshana ku soo baxaysa. meeshan markay soo baxdo waxaad doorataa edit my portify kadibna waxaan iska bedelinaa passwordka. so hoos wax yar u soco amba u siko halkan waxaad u qabtaa passwordkaga adoo aad jeceshahay eed xusuusanaysid. okay, mar labaad ku qor calaamadda cas waxay sheegaysaa passwordku waa weak aad buu jilicsan yahay laakiin nagu hadda waa kana waxa weeyaan for testing. so waan dhamaynay website-kii aan ku noqonaynaa waxaan eegaynaa website-ku siduu u ekaan doono. okay, kadib waxaan yar eegaynaa website-ku siduu egyahay. so waxaan hadhow ka yar hadli doonaa website-ka WordPress-ku siday u eg tahay admin-keegu. so wp-admin always waxaad ku gelaysaa magaca website-kaaga oo URL-ka la raaciyey kadibna wp-admin xagga -admin lagaga dalay. sanout baan leenahay. haddaba markaa wuxuu ku weydiinaya username iyo password. haddaad username password saxan haysan ma ogolaan doono. mar labaad waxaynu tusayaa wp-admin oo ina halkaas sare ku qortid si aad u geertid username iyo passwordkaaga saxda aad u geliso. so passwordkii admin buu ahaa username-kii passwordkiiguna anaa aqaana waan geliyey kadibna waxaan ku dhafanayaa login amba inta baad taabanaysaa kadibna waxaa ku soo baxaya wax la yidhaha dashboardka ku soo baxaya kadibna waxaa ku soo baxaya waxyaalihii aad hadhow isticmaali lahayd sidii posti media pages common waxaa dhan saad u bedeli lahayd. so maanta waxa weeyaan overview dusha sare ayaa laga eegayaa oo waa tijaabo casharkii ugu horreeyay weeyaan kani.
marka WordPress waxaan idin tusayaa siday u egtahay. So haddaan ku dhufto view my site amba view site saas u ekaanayaa. ujeedaa siteku waa kaas, wax lagu qoray hadda ma jiro. sitekan ayaa waxaan samayn doonaa continuous baan u wadi doonaa insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo. kadibna waxaan ku noqonnaa dashboardkeenii, kadibna customize haddaad doonaysa inaad wax bedeshid, inaan wax ka bedelno waxaad ku dhufanaysaa meesha customize ku qoran tahay. hadda waxaan bedelinaa hair colorkiisa. so waxaan ka dhigi karnaa any color aan jecelnahay inagu. okay, waan iskaga noqonay. color kasta oon jecelnahay ayaan ka dhigi karnaa inagu. okay, color kasta oon jecelnahay ayaan ka dhigi karnaa. soo ujeedid xaggaa waxaad ku qoraysaa appearance markaa ku dhufatid waxa kuu soo baxaya kuwa hoos ku qornaa tambeladeda baa kuu soo baxaya la dhiganayay websiteku sidii usoo baxaya ahaa. so hadda waxaa iska doornaataa 2013 markaan doorano customize baan odhananaa. hadda websitekeena waa siduu jeedo, siduu egyahay. waxaan bedeli doonaa siduu ekaan doono. so hadda waxaan bedelnay waxaan doonay 2013 templatekan waxaan rabnaa inaan bedelno meesha my blog. so waxaan ku qoraysaa halkaas, waxaad dooranaysaa site title waad bedelaysaa. waxaan ka dhigaa welcome to my website, welcome to sorry halkaa waxaan ka dhigay laakiin to my website baan u jeeday. waxaan qorayaa I like to learn WordPress inaan bartaan jecelahay ayaan ku qorayaa meesha si tijaabo ah. so waxaan tusayaa qoraalka waad qoraysaa waad arkaysaa meesha siduu ugu qormayo. okay, halkan waxa weeyaan haddaad loogada bedelaysa amba heerka dusha sare, halkan aad ku dhufanaysaa waxaad qarin kartaa. waxaad oranaysaa mid kale ii soo geli. waxyaalo badan ayaad ku samayn kartaa. marka maanta casharkani waa tijaabo. casharadan waxay noqon doonaan kuwa socon doona insha Allah si joogto ah. waxaad nagala soo xiriiri doontiin maxaa la yidhahdaa samts.com insha Allah. wasalaamu calaykum.